waxaan leenahay soo dhowow gaalkacyo oo mid ah gaalkacyo oo federaalka iyadu hooyo ah ee jecel in dadku isku milmo haddaannu go'aansannay dhallinyaro hooyooyin shacab iyo maamulka gobolka labada dhinacba waxaannu kugu soo dhoweyn annagoo far ah annagoo isku mid ah annagoo aad tahay wasiirkaygii ku soo dhowow waxaa kolley maalin soon baa ku soo aaday martiqaadkayguna kolley wuxuu noqon doonaa labada geesba inaan hal maalin aannu ka wada dhigno sidaan guddoomiyaha gool ku shiinay oo bacdaliida inaan kulan weyn kuu samayno tan soo dhoweyn weeye bulshada labada dhinacba hal meel iskugu timaaddo oo wixii aad nooran lahayd iyo wixii aad nugu waan leedahay ka soo jeedisid soo dhowow waxaan u mahad celinayaa shacabka gobolka mudug labada dhinacba oo si mugla noogala qayb qaatay soo dhoweynta wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah saadiq warfaa wasiirka waxaa le wasiir ku soo dhowow shacabkaagii waxaannu soomaali inta kale ugu faanaynaa inaannu annagoo midaysan oo nin walba eerboorka meeshuu raba ka soo galay aannu wasiirkaiyo ku soo dhoweynayno soomaalinimo iyo reer mudugnimo aad baa lagaaga jecel yahay waa gobolkaad xildhibaanka ka noqotay haddana wasiir baad noo keentay waa waxtar waana u mahad celinaa ra'iisul wasaarihii noo kaa doortay isaga laftigiisa wuxuuna dareemi doonaa maanta rabadaan baydo dadku waa soomay oo maannaan soo bixin laakiin wuxuu dareemi doonaa nin ragle inaad tahay dadkiisuna ku kalsoon yahay maasha allah waa mahadsan tahay gudoomiyaasha gobolka mudug labada maamul ee Puntland iyo Galmudug odayaasha dhaqanka dhalinyarada gabdhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad gaar ah ayay tahay waxaan dareemayaa in mas'uuliyadda ay saaran midda deegaaneed oo ah deegaanka gobolka mudug aan ka soo jeedo iyo midda qaranameed aan ka ahay wasiirka dowladda federaalka ee arrimaha shaqada arrimaha bulshada labada mas'uuliyad waa dareemayaa waxay tusaysaa kaalkacyo oo midaysan inay soo dhoweysay aad baan ugu faraxsanahay kaalkacyo waa xuduntii Soomaaliya weey kaalkacyo waa xuduntii Soomaaliya kaalkacyo haddii ay kaalkacyo hagaagdo Soomaaliya waa hagaagaysaa taasi shaki kuma jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa waxa weeyaan aad ugu faraxsanahay wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa labada gudoomiye gobol ee Puntland iyo Galmudug si wada shaqaynayaan waxaan kaloo aad iyo aad rabaa inaan xasuusiyo annagu waxaan ku shaqaynaa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo waxaan hirgeliyaa ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa waxaan xasuustaa ciidamada isku dhafka ahayd ee arintaas uu lahaa madaxweynaha ee ka hirgashay gobolka magaalada Kaalkacyo ka hirgashay inaad ku nagaadeen ku nabadaysateen aad baan ciidamadaas ugu boorinayaa waxaana shacabka Soomaaliyeed xasuusinayaa waxay tahay intii nabad iyo nolol ay timid inaana wax shaqaaqada ay ka dhicin magaalada Kaalkacyo marka aad baan ugu rajaynayaa nabaddaas ay hesheen inaad sii xoogsataan oo aad ku sii dhistaan oo dad aanu ka shaqeyno inaan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed inay gaaraan hal qof iyo hal cod hadda waxa aragteen sharcigii doorashada ayaa wuxuu golaha wasiirada waan sixinay hadda baarlamaanka ayuu hor yaalaa ma nasan doono mana seexan doono in sharcigaas qofka Soomaaliga mar dambe in mataqaana ergooyin ama in yaro inta soo xushaan waa inaanu ka shaqeynaa in muwaadinka Soomaaliyeed oo meel walba jooga oo isagu xaq u leeyahay qofka isaga matala inuu soo doorto taa in laga wada shaqeeyo ayaa muhiim ah waxaan aad ugu faraxsanahay mataqaana maanta iyo maanshaha ay sida diiran ay soo dhaweyseen Kaalkacyo magaalada gobolka Mudug anigu waa kaarkayga xildhibaanada waxa igu qoran intaana wasiirka laga dhigay barnaamij oo sheegay labada gudoomiye la kaftama rabaa waxaan ku qortay Mudug constituency anigu waxaan aaminsanahay inaan xildhibaan gobolka Mudug marka aad baan ugu faraxsanahay si wada jir ay soo dhaweyseen waana idinka ajiibay waxaan idin soo gaaray idin sheegay waxay tahay si la socotiin waxaan ku jirnaa maalmihii qaaliga ah ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wala fajr wala ila 10 maalmahan ilaahay ayaa ku dhaartay 10 maalmood oo maanta carrafaan soomanahay ilaahay waxaan ka rajaynaa dalkeena inuu nabad iyo barwaaqo ilaahay ka dhaliyo ilaahay waxaan ka rajaynaa nabadda haysatiin reer Kaalkacyo ilaahay idin zaa'idiyo inaa horumarkiina dad ka shaqeeyo wanaagsan ilaahay xukunkeedu ku dhibay ilaahay ka rajaynaya ma carrafa ayaa dadkii muslimiintu taagan yihiin ilaahay baa la barayaa maanta kala ducada ayaa la badiyaa barina waxaan u dabaaldegaynaa ciidii weynada Ilaaha si la socotay shaqaalaha Soomaaliyeed waa fasaxnay iyo shaqaalaha rayidka ahba sidaas ayaa waxaan isiri gobolkii ka soo jeeday Mudug waa ina ciid tagtaa oo dadkii ciid la soo ciidaa sidaas ayaa idinku yimid
إن شاء الله تعالى قدوميال aad baa u mahadsantihiin shacabka sida diiran ii soo dhaweeyay waxaan ka rajaynaynaa ka wada shaqeyno horumarka Soomaaliya dhamaantiin aad baa u mahadsantihiin